السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkani waa Burji Media. waxaynu eegaynaa shirkii loogu ballamay iyo wixii ka soo baxay maadaama saddexda xisbi ay beriyahan u ballansanaayeen habkii iyo nidaamkii ay ku talagaleen ee laga filayay inay wax ka soo baxaan. haddaba labada gudoomiye ee xeerdejinta ee kala ah Saleebaan Maxamuud Aadan iyo Cabdirasaaq oo ah golaha wakiilada la isku yiraahdo golaha baarlamaanka. bal haddii aynu guud ahaan labada gudoomiye xilkooda isdul taagno ama aynu iska xasuusino labada gudoomiye ee baarlamaanka aqalka la isku yiraahdo madaxdoodana u ah golaha guurtida waa Saleebaan Maxamuud Aadan iyo golaha wakiilada kuwaasoo kala ah xeerdejinta koowaad iyo labaad. labadaasi gudoomiye waxaynu doonaynaa maadaama ay ergadi ka baxday meesha oo aynu ka filaynay in saddexdii xisbina arrinkooda iyo wixii markaasi ay ku wada hadashiinayaan ay siiyeen wixii markaasi kalsooni ahaa ee laga doonayo in marka ay arrimaha u diraan dhinaca shuruucda yacni ku saabsan ama mid waliba uu ka tabanay kale ee uu doonayo in ay soo bandhigeen iyagana u soo gudbiyaan saddexdaasi xisbi natiijada ka soo baxda waa inay ku qaraqaan. haddaba madaxda xeerdejinta waxay isu gudbiyaan xeerarka si ay markaasi isula hubiyaan waxa ay dhexdhexaadin karaan ama ka dhex wadaan saddexda xisbi oo halkan inooga muuqda ayaa waxay tahay labada xubnood ee dhexdhexaadinta ka wada inagoo aan hadda eegayn nidaamku ama sharcigu waxa uu dhigayo. waxay ku dhexdhexaadinayaan ama ay ku dhexdhexaadin karaan maadaama ay xeerdejinta yihiin de waa arrimo sharci. arrinta markaasi hortaalla waxa weeyaan ma tahay mid waqtigeedii wax laga qaban karo sharcigeeda ay ka doonayaan ee dhexdhexaadinta ay ku wadaan. ma u muuqataa xeerka doorashooyinka guud ee xeer lambar 19 oo uu ku saxeexan yahay madaxweyne Muuse Bixi Cabdi in ay noqdaan mid markaasi habka iyo waxa uu tilmaamayo iyo qodobada waqtigan taagan ee hadlaya inay ku soo dabaalaan saddexda xisbi. labada gudoomiye miyay markaa u badheersan yihiin qodobada hadda taagan ee xeerkaasi uu tilmaamayo? haddii aynu 120 maalmood ee xeerku tilmaamay ka hor in markaasi ay dhawaaqaan komishankii loogu talagalay ee doorashooyinka oo noqonaya 120 cisho ka hor inay markaasi iyagu soo gudbiyaan dhawaaqii. waxaynu ognahay inay 4 xubnood yihiin oo aanay hawshaasi ku dhawaaqi karin laakiin waa sharci. maxaa markaa uga yaala labada gudoomiye haddii madaxweynuhu uu dhammaystirto 150 maalmood ee ka hadhay muddaxileedkiisa maadaama doorashadu ay ku beegnayd 16 Noofambar haddii uu ku guulaystana dib loogu dhaarinayay bil ka bacdi oo noqonaysa bisha ku xigta ee Disembar. haddii lagaga guulaystana uu xilka ku wareejinayo bishaasi oo ay noqonayso Disembar. labada haddaba gudoomiye intaynaan talo yacni faraka hadin maxaa la gudboon xilligan aynu taaganahay marka aynu tilmaamayno xeerarkana aynu isdul taagino xeerkaasi xeer 91 waa xeerka markaasi aan dhinaca loo dhaaf karin. arrimaha haddaba soo baxaya ee xogogaalka markaanu eegno labadii cisho ee ugu dambeeyey ee ahayd in shalay iyo maanta wixii wara ee loo dhegtaagayay saddexda xisbi ay ku kulasaayeen natiijadooda in laga arko ayaa waxay soo baxayaan wararka xogogaalkii si nagu soo gaaray haddaan nahay Burji Media in maalintii hawshan loo saaray labada xubnood ee markaasi aqalka baarlamaanka ee gudoomiyaha guurtida iyo gudoomiyaha golaha wakiilada ay noqotay in madaxweynuhu halkaasi kalsoonida ku dhiibo isagoo hore u sheegay inaanu kalsoonidiisa hore u siin marnaba qoladiisa raqaantay salaadiyiinta iyo isugu jirtay aqoon-yahanka iyo culimada. haddaba hawshan labada cisho laga foolinayay ee noqotay bal hadda wixii iyaga oo aynu arkayno in shuruucda iyo nidaamkaba aanay waafaqsanayn haddana yacni kulankoodaasi saddexda xisbi ee saddexda qof ay ka socdeen wixii markaasi ay u soo gudbiyeen natiijada ay ku dhawaaqaan ay waxay noqotay labada xisbi mucaarad in ay kalsoonidii ay bixiyeen ay qoraal ku keenaan. sida haddaba la sheegay xaqiiqdu markaasi ay daaran tahay waxay noqotay in labada gudoomiye oo wada socdaa ay u kaceen dhinaca madaxweynaha oo ah gudoomiyaha xisbiga ahna madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland. maxay haddaba kala kulmeen ee ay kala soo guriyeen noqdeen ama
taagan xilligan waxay noqotay waxyaabaha ay kala soo noqdeen ee ay ka doonayeen madaxweynuhu waxay ahayd maadaama uu isagu bixiyey kalsoonidii ahayd in labadaa guddoomiye uu ku kalsoon yahay ergadina ay sidaa kaga baxday meeshii laakiin iftitaaxa lahayd oo furantay taasiba waa waxweyne ay noqotay in iminka ay u gudbiyaan labadii xisbi inay kalsoonidooda qoraal keenaan madaxweynahana arrintaasi ay labada guddoomiye kala hadlaan taasoo ilaa iyo iminka arrimaha halkaasi kasoo baxay ay yihiin miduu madaxweynuhu ka gows adeygay inuu markaa kalsoonidiisa uu qoraal ugu soo gudbiyo halkay labada xisbi mucaarad qoraalka kusoo gudbiyeen waxay noqotay haddaba arrintaasi maadaama marka horeba aanay nidaamka iyo sharciga waafaqsanayn oo saddexda xisbi wax keliya oo go-aana oo ay isku waafaqeen oo kasoo baxay haddii ay dhacdo oo ay markaasi isku waafaqaan yacni waxay markaasi ay isla gartaana ay door bidaan in labada guddoomiye ay gudbiyaan aanay sharciyadda waafaqsanayn oo laga doonayo xilliga doorashada laga hadlaya inay cidda waafaqaysa ama ku dhawaaqaysa ay ahayd waqtigeedii oo markaa imka ay muddo dhaaftay dee golaha yacni qeybta u qaabsan oo ah komishiga doorashooyinka qaranka tii markaasi maanta lama hadalhayo mana taalo waana ta runtii la isugu imanayo ee noqonaysa waxaa keliya ee sharciyadda dalkani uu ku soconaya inay tahay inuu madaxweynuhu sharciga u dhaartay ee uu ku saxeexan yahay ee xeerka doorashooyinka guud ee ka hadlaya doorashada madaxtooyada inay tahay qasab sandulle maadaama uu yahay qofkii ugu sarreeyey ee dalkan iyo dadkanba loo dhaariyey xeerkanna uu yahay kagaarka ku saxeexan inuu waxa uu ka hadlayo uu ayido aqbalo run ahaantiina lagu dhaqmo wixii kasoo baxana uu nasiibkiisa ka qaado ta kale waxa weeye dadku waxay isku qaldayaan ururada ama guddiga diiwaangelinta ururada iyo asxaabta oo iyagu shaqadoodii bilaabay 27 juun inay hawshoodii diiwaangelinta bilaabaan ururada waqtigan aynu joogno waxa u haray 12 cisho maadaama 45 cisho gudahood loogu talagalay muddadaasi in ururada iyo ciddii hawsha qabsanaysa inay kusoo dhammaystiraan arrintaas markay soo dhammaatana waxaa loo soo gudbinaya saddexda ugu dambeeya hawshooda tartankiisa ay galaan waa komishiga doorashooyinka qaranka tiina way bannaantay waa burji media oo kule fadlan waxaan ku leenahay subscribe-ka hayloobin wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu wixii kasoo kordhana waynu waqtiyada soo socda